أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayaan salaamayaa dhammaan walaalaha janalkayga ku xidhan. waxaan ilaa waqti kasta idiintaa idiin wacnaado kusoo dhawaada qisadan maanta aan rabo inaan ila wadaago. maanta waxaan jecel inaan ila wadaago qisadii aasiya zawjatu fircawn oo lagu magacaabi jiray aasiya binti musaaxim. fircawn oo markaa ahaa ninka fircawn ee qur-aanka ilaahay oo kusoo sheegay ee ahaa ninkii ugu kufriga iyo dulmiga iyo istibdaadka iyo ugu xumaanta badnaa ee taariikhda bashariyada soo mara, oo gaadhay heer uu sheegto ilaahnimo isaga oo markaa ku adoonsan jiray dadka, sidaa qofkii kasoo horjeestana leynayay, qof walba dilayay oo kasoo horjeesta, isagoo markaa ragga leynayay, caruurta leynayay, haweenka xumeynayay, wax kastoo dhibaato qof bini aadan ama lagu sameeyo oo dhan isagoo adduunka kasoo sameeyo fasaad fara badan adduunka kusoo kordhiyey. ayaa waqtigaasi waxaa gurigiisa kula nooleyd aasiya binti musaaxim oo ahayd markaa xaaskiisii. aasiya oo iyadu qalbigeeda oo mar walba ilaahay kusoo dejiyey naxariis iyo iimaan, iyadoo mar walba aaminsanayd inuu jiro ilaah kownkan abuuray, in waxaan fircawn sheeganayaana ay tahay been, qof bini aadana oo ilaahay abuuray inuu yahay, iyadoo aaminsan oo qalbigeegu aaminsanaa. markii ugu horreysayba ayay mar walba ka qarin jirtay arrinkaasi, iyadoo og xumaanta uu kula dhaqmi doono. markii ugu horreysay iyadoo iimaankeygu haddana qalbiga u buuxiyey. waxaa dhacday in nebi muuse markuu dhashay fircoon ku amray dadka, oo xilligaa ku amray dadka in wixii wiil dhasho oo dhan la laayo. ayaa waxaa ilaahay kusoo ilhaamiyey nebi muuse hooyadii calayhi salaam in ay webiga biyaha markii uu dhasho ay biyaha raaciso, isaga oo ugu ballan qaaday ilaahay inuu ilaahay usoo celin doono nebi muuse. iyadii oo aaminsan ilaahay ayaa ay nebi muuse calayhi salaam hooyadii ay sidaa markii uu dhashay boxk intay ku riday biyaha webiga la raaciyey, biyihiisay u wadeen, waxay tegeen gurigii fircawn ay horjoogsadeen iyo bogoskii horjoogsaday. kadib waxaa soo qaaday gabdhihii guriga joogay, waxayna u keeneen aasiya xaaskii fircawn. markii ay fureen waxay arkeen ilmo yar oo gebigiisuba wada nuur ah, oo nuurkiisu meel walba gaadhayo. markii ay kasoo saartay fircawn loo sheegay, ayuu fircawn wuxuu isku dayay inuu dilo maadaama uu wiil yahay. aasiya binti musaaxim ayaa markaa ka badbaadisay, ilaahay raalliha ka noqde, waxayna ka tiri ama u sheegtay inuu ilmahani u noqon karo ilmo iyagu ay korsadaan oo hadhow tole iyaga khayr u noqon kara. ayay ku qancisay fircawn oo markaasi sidaa ku daayay nebi muuse calayhi salaam, oo markaa u baahday in la naasnuujiyo, ayaa wixii dumar loo keenay oo dhan u diiday. nebi muuse walaashii oo markaa xaalkiisa iyo bogaskaas halkuu tegaya la soo socotay ayaa guriga timid, waxayna u sheegtay aasiya binti fircawn, aasiya raalli ahaada xaaskii fircawn, in ay garanayso gabadh aad u wanaagsan ama reer aad u wanaagsan oo wiilkan naas nuujin kara, lana ilaalin kara. sidaasaa nebi muuse calayhi salaam hooyadii loogu yeedhay, sidii ayayna ku naas nuujisay oo xaafadeeda ku geysay. saas ayuuna ilaahay subxaana watacaala ballankiisii ugu oofiyey nebi muuse hooyadii, qalbigeygiina ugu degay, maadaama isagii oo yar ay markaasi xaalad lasoo kulantay, oyna biyaha webigana raacisay. nebi muuse isagii oo iska roon oo markaa sina rushd gaadhay, markii uu roonaaday oy guriga fircawn jooga, ayaa waxaa dhacday inta aanu weynaanin, waxaan niisoo sheeka dhaafay in isagii oo yar maalin maalmaha ka mid ah oo nebi muuse calayhi salaam fircawn oo dhabta ku haya inuu garkiisa saa xoog ugu soo jiiday, si xooga markuu usoo jiiday ayuu fircawn cadhooday. wuxuuna markaana isku dayay xataa inuu haddana dilo. wuxuu yidhi wiilkan yari wiil khayr ila maaha, waxbaa kasoo socda, waan dilayaa. markii labaad ayay aasiya binti musaaxim haddana badbaadisay nebi muuse calayhi salaam, waxayna u sheegtay inuu ilmo yar yahay, awna wuxuu garanayaa ayna jirin. kadib wuxuu amray in dab la keenay iyo timir. wuxuu yidhi waana ku tijaabinayaa, haddii au dabka qaato waxay ka dhigan tahay waa ilmo, oo wuxuu garanayaa ma jirto. haddii au timirta qaato waxay ka dhigan tahay
waxbuu garanayaa ilmaha yari, marka waan dilayaa. bilnasiib ama nasiib wanaag malaa'igtii ayaa ku hagaajisay gacantiisa dabkii ayuu soo qaatay oo afka gashaday, taasi oo carabkiisa waxyeeshay oo markii dambena aw hadalkiisu aw noqon waayo hadal faseexa, taasoo sababtay inuu hadalkiisu faseex noqon waayo. sidaas ayayna Aasiya ugu sheegtay inuu ilmahan ilmo wax garanaya una ahayn. sidii ayuuna mar labaad ku badbaaday oo Aasiya binti Musaaxim xaaskii Fircoon nabiyullah Muuse ku badbaadisay. markii ay diintu ay ilaahay kusoo dejiyey nebi muuse ayaa isaga iyo nebi haaruun calayhim assalaam markii u yimaadeen fircoon ee u sheegeen arrinkii sixirka iyo saxarada iyo wax walba oo dhan oo isku keenay fircoonkii markaa ilaahnimada sheegtay nebi muuse uu ka guuleystay, ayaa iyadii oo Aasiya markeedii horeba qalbigeedu oo iimaan ka buuxa, ayaa iyadii oo dhageysanaysa waxa ka dhex dhacaya ama hadalka isla wadaagayaan ama sheekada ay wadaagayaan fircoon iyo muuse iyo nebi muuse iyo nebi haaruun calayhi salaam, ayaa waxay yaqiinsatay ogaatayna in diintan ay nebi muuse uu ku baaqayo ay tahay diinta xaqa ah ee saxda ah. sidaasi ayayna ku islaantay iyadii markii horeba qalbiga iimaankeedii islaamnimadu buuxisay. saas ayayna ku go'aansatay inay fircoon ugu sheegto ama ugu baaqdo in waxaanu sheegaya ayna waxay ka jira ayna jirin, ayna ku kufriday, ayna aaminsan tahay ilaahay. waxay u sheegtay fircoon inay ilaahay aaminsan tahay, inuu wuxuu sheegaya oo dhan ay been tahay, inay ku kufriday, inuu qof wanaagsan ahayn, inayna raacday ama ay aamintay ilaah muuse ilaahiisa inay aamintay, ay muuse iyo qoomkiisa ay raacday. taasi oo fircoon uu qaadan kari waayey, aadna uga cadhooday, sababtoo ah dee qof kale haddii uga iman lahayd hadalkaasi waxaa laga yaabi lahaa inay wax saas ay dhiba ku ahaateen, balse markii xaaskiisii qofkii ugu dhowaa ay ka timid, runtii wuu qaadan kari waayey, aad ayuuna u cadhooday. wuxuuna isku dayay inuu tacdiibiyo ama uu dhibaatooyin fara badan u geysta Aasiya binti Musaaxib. xilligaas oo meel saxaaraa geeyey oo geeda ku xirxiday oo dhagax dusha ka saaray oo si walba uu tacdiibiyay ama uu dhibaateeyey oo u ciqaabay si ay uga soo noqotay diinteeda. 3 cisho oo isku daba xigay ayuu bilaa cunto iyo raashin iyo biyo ka dhigay meel saxaaraa intuu ku xiray. maalin walba intuu yimaado ayuu ka oran jiray miyaad aamintay miyaad aaminsan tahay, miyaad ka noqotay. markaas iyadoo la cadaabi oran jirtay maya, iimaankayguba igu sii weynaaday oo aad iyo aad buuba markii hore uga sii weyn yahay iimaankaygu. wuu la yaabi jiray. ugu dambaystii markuu arkay inay go-aankayga ay ku adag tahay oo waxba uu ka bedeli karin, ayaa wuxuu ku amray qoomkiisa inay soo qaadaan dhagax weyn, meel sare ay kaga soo tuuraan, ay madaxa ay kaga dhuftaan. markii ay cadaabta iyo dhibta ay ku jirta ay aragtay, ayaa waxay ku ducaysatay, ay ilaahay intay gacmaha kor u taagtay tiri ilaahayow rabbi ibnii lii baytan fil janna cindaka baytan fil janna. ilaahayow waxaad ii dhistaa guri jannadaada iga dhis, igana najee ama iga badbaadi fircoon iyo dhibaatada ay igu hayaan iyo dhibaatadan aan ku jiro, ilaahayow iga badbaadi. sidii ayuu ilaahay markaa uu ku aqbalay ducadeedii Aasiya bint Musaaxim. ilaahay wuxuu qur-aanka ku sheegaya uu leeyahay وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إلهي يوم نعم إلهي وحو لي waxaan tusaale quraanka aan dadka muuminiinta ugu sheegnay xaaskii fircawn markii ay tiri ilaahayow guri iga dhis agtaada oo iga badbaadi fircawn iyo dadkiisa. ilaahay waa aqbalay ducadeedii. markii lagu soo tuurayay dhagaxa ee la rabay in madaxeega jirka lagu baabi'iyo ku dilo fircawn sidaa, ayaa ilaahay wuxuu tusayaa aqalkeygii jannada ay ku lahayd. markaas ay qoslaysaa. fircawn ayaa markaa la yaabayo leh sidee u qosli kartaa iyadoo la dilayo, gabadhan waa gabadh la yaab leh ayuu leeyahay. intii ayna dhagaxa una soo gaarin madaxeygana ilaahay naftii uu oofsaday nafteedii oo naftii waa laga qaaday si ayna u dareeminba xanuunka ama dhagaxa lagu soo wado. sidaas ayuu ilaahay ducadeedii ku aqbalay. waxayna ka tirsan tahay Aasiya binti Musaaxim dadka
ama dumarka ilaahay ku sheegay nisaa alcaalamiin ama nisaa ahliljanna oo ahaa afar aasiya binti oo nabiguna caleyhi salatu wasalaam inoo sheegay aasiya imraat fircawn iyo khadiija binti khuwaylid xaaskii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo faatima zahraa gabadhii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo maryamatu binti cumraan afartaa dumar ayaa sayidaat nisaa alcaalamiin qur-aanku ku sheegay iyo inay yihiin sayidaat nisaa aljanna dumarka ugu wanaagsan ee adduunka soo mara ay jannadana sayidaat yani oo ah jannadana aan nisaa aljanna la odhan karo kuwa ugu wanaagsan dumarka ugu wanaagsan jannadana la odhan karo afartaas ayuu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay waxay ka turjumaysaa qisadani iimaanka ee qofka biniaadanka markuu iimaanku qalbigiisa ilaahay u buuxiyo inaynu wax walba oo nolosha dhaldhalaala oo yacni wanaaga oo ku doorsanayo mar walba ilaahay oo iimaanku xoogiisu markuu qofka iimaankiisu xoogeysto inuu adduunyada waxba u arkayn oo aakhirada u ahaanaysaa wax walba xaaskaas fircawn oo ku jirtay jannadii adduunka oo aqal weyn ku jirta aqal iyo dad shaqaale yani iyo mujawharaad nooc walba iyo yani tafaakhur iyo nolosha tii ugu qurux badneed ugu wanaagsaneed qof ku tamaniyay ku jirtay balse waxay ka dooratay ilaahay iyo jannada ayay ka dooratay waxa adduunkuna waa wax mar walba dhammaanaya balse ta aakhirada ayaana dhammaanayn mar walba inaan markaa aan isku dayno inaan aakhiradeyna aan u shaqaysano oon iimaankeenu aan isku dayno mar walba ahaado iimaan buuxa oon dad taqiyiin oo ilaahay ka cabsanayna aan ahaano waayo nolol walba adduunka ku jirto kafan yaroo cad baa kaa raacaya maalin baad ka tegaysaa runtii waa qiso cibradeeda iyo qisadeeda leh inkaasaan kusoo koobayaa dhammaantiin waxaan ilaahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu